waxaan ka hadlaynaa un dadkan xajiyeeya wixii iyaga ku toosan ee ku quman ee laga doonayo midna waan idinku bishaaraynaynaa dadkii hore aan u tegin ee aan xajiyin waxaa laga yaabaa inay walwalayaan oo yidhaahdaan maxaad akhriyi doontaa sideed uga soo bixi doontaa waxba male dhibaato male xajku salaada wuu ka fudud yahay ma socodka iyo dhibaatooyinka qofku uu la kulmayo maahee salaadu waxay kaaga xidhan tahay si hadal quraanada akhriday kaaga xidhan tahay rukuucdu bay kaaga xidhan tahay sujuudii atixiyaadkii waxyaabo la akhriyaayo xajku wax alla wax la akhriyayo oo aad istiraahdo ka walwasho oo aad istiraaxamaad waxaa dusha ka haysaa aad istiraax xajku male waa qalbiga wixii laga samaynayo iyo afcaal la samaynayo un weeyi markaa qof uuna ha ka walwalin qofka aan hore u xajiino ama aan wax akhrisanino ha ka walwalino hays odhanin sideed uga soo bixi karaysaa hays odhanin uu kuu fududayaa ilaahayna uu kuu fududayn doonaa insha allahu tacaala culamada idin hogaaminaysana waxa uu barnaamijkoodu yahay maalin walba waxa berri la qabanaayo iyo galabnimada idiin sheegayaan oo dhanayaan berrito waxaasaan qabanaynaa ayay idin odhan doonaan awalan kolka u horreysa haddaynu eegno xajku saddex siyood baa loo gutaa alifraad waalqiraan watamatuc xaj iyo cumra horta la yidhaha labaduba waa waajib bay yihiin inaad u gudatood labadaba iswada raaciso ood xaj iyo cumradiiba mar keliya aad wada xidhato iyo in maahee ifraad aad samayso oo xajka horta aad xidhato xajka acmaashiisa markaad dhammayso cumrada aad samayso iyo inaad cumro xidhato oo cumrada acmaasheeda kolkaad dhammayso xajka aad xidhato innaga inta badan sida u fuduuday ee loo gutaayey waxa badan cumradaa la horreysiiyaa horta madiina lagu horeeyaa kolkaa madiina lagu horeeyaa halkaa kolkaa aad xidhanaysaa ma jirto inta aad madiina ku socoto kolka dayaaradii fuushay kol haddaad madiino ku socoto waxba ma xidhanaysid 4-5 cisho ama 3 maalmood intii ilaahay idin qadiraad madiina joogaysaan waxaad ku horeynaysaan alaabtii kolkaad dhigataan meeshii laydin dejinayay addegtaan ee dahaaro qaadataan meedhataan eed weysaysataan qofka cunto u baahan cuntada u yar cuno kolkaasaa kolkaa laba soo dhaqaaqaya wax lagu soo dhaqaaqayaa masjidkii nebiga qabrigii nebiga sallallahu alayhi wasallam way isku dhex yaalaan yaa la imanayaa ziyaaradii baa la gudanayaa nebiga kolka masaajidkii lagu tukado iyo qabrigiina ziyaaradiisa la ziyaaranaya oo maraysa iyadu madiina kolkaad joogto halkaa madiina kolkaad joogto aad maalinta la soo baxayo madiina laga soo baxayo iyo abyaar cali meesha la yidhaho meel ilaa 12 kilomitir madiina kolka laga soo baxaya waa la idin sheegi doonaa waa caam oo waa la yaqaanaa masjid dhul xulayfa la yiraahdaa halkaasaa laga soo xidhan doonaa cumradii laga soo xidhan doonaa waxaan imaankiina ugu bilaabaynaa in cumrada horta aan horreysiino cumrada kolkaan dhammayno xajkana aan xidhan doono halkaasaa cumradii laga soo xidhanaya xidhashadeedii waa maxay 2 ragcadood baad horta la tukanayaa oo masaajidka halkaa ku tukanaysaan 2 ragcadood qalbiga waxaad ku qabanaysaa waa 2 ragcadood ee cumrada ihraamkeeda ahaa waxba lagama baahna inaad ku dhawaaqdo way niyadaadii baa ah ilaad cumradii kolkaad xidhanayso adoo diyaar garoobay oo ragga oo kale 2 go' u xidhan yahay oo wixii talnaa uu faaruq ka yahay haweenkuna dharkiina aad imika xidhan tihiin baad aad xidhan tihiin ayuu qofku haddii salaad u tukadayna kolka salaadii uu ka salaamo naqsaday ayuu u kacayaa haddii salaad farada ay tahay kolku sunnayaasheedii tukado ayuu odhanayaa nawaytul umra labbayk allahumma labbayk ilaahu cimraan niyooday baad leedahay waanan xidhay naway xajkuna waa saas oo kale un xaj baan niyooday waanan xidhay soo salaada kolka la galayo allahu akbar lama odhanayn xajka kolka aad xidhanayso ama cimrada kolka aad xidhanayso imika cimrada baynu wadanaa waxaad leedahay un cimraan niyooday waanan xidhay labbayk allahumma waad ku daba qabanaysaa labbayk ka goyni waad ku darisaayo يعني waxa la way israaci baa lagu leeyahay cimraan niyooday waanan xidhay labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
لا شريك له هدان هيننا كصاحب كاغا ايه maxay hayday akhriya yad ka daboonaysa inta kolka tiraahdan baaburtii wad fuulaysan wad soo baxdeen dhulku waa mutawafir waxa idin ka warrami doona ragga idin raacaya meel walba waxay leedahay beetilmeeyadii iyo waxay leedahay dhulkii wax laga cunayay masaajidadii lagu tukanayay markaad kolka soo gashay marka kolka soo gashaan waxa weey umradii baad in xiratay oo raggana labadii goob uu xiran yahay haweenkiina dharkiina caadiga abaad xirantiina haweenka waxa ka mamnuuc in wajiga inay qariyaan oo sida u soo dadaan un baa mamnuuc ka ah iyo kaf halkan loo iyana shanfarood ay gashadaan iyagana waa ka mamnuuc halka rag la leeyahay ragga labada go'on mooye looma ogolo koofiyadna looma ogolo shaar lama ogolo garan lama ogolo qamiis lama ogolo oo xataa sida uu isku wixii deg qof walba sariirihiisii iyo qamiishii lagu hagaajiyay uu degayaa oo hagaag buu degayaa hadduu cunto u baahan yahay ha cuno haddii maxay hayday uu dahaaro qaadanayo ha dahaaro qaato toos baad soo baxaysaa oo beedkii baad imanaysaa kacbadii dawaafkii u horeeyay ee dawaaf umradii xirashadii waynu soo xidhanay maxaa laga rabaa xirashadii waynu soo xidhanay beedkii baad dawaafaysaa haddana sacyigii baad samaynaysaa timihii baad jaraysaa durraga yahayna uu xiiranayaa ama uu gaagaabinaya haweenka haday yihiinna inta xubinta farto inta yar in leeg waan garanaa xubinta farto oo dhan ma aha inta xubinta in leeg bay meel kamida timaheeda sida inta uu soo qabato bay sida u yar sida u jari way bay inta wax ka weyn loo badan looma sida iyaga waa ka mamnuuc bayna xiiraan madaxana waa ka mamnuuc oo xiiraba maayaan